kulanti waxaan dhammaan daawadayaal barnaamijkeena maanta iyo maalinlaha Jubba waxaanu ku soo qaadan doonaa dagaal qaraar oo saaka ka dhacay duleedka degmada Aadan Yabaal iyo meydad fara badan oo ka tirsan Al-Shabaab oo la soo dhabay degmada Aadan Yabaal. Golaha aqalka sare ayaa la filayaa inay maanta kulan yeeshaan ugana doodaan laba qodob oo muhiim ah: Soomaaliya iyo Itoobiya oo kala saxiixday heshiisyo amni ah, dowladda Soomaaliya oo shaacisay arrin la yaab leh oo Al-Shabaab kula kaceen dagaalamayaashooda. Qodobadaasi ayaanu ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena maanta iyo maalinlaha Jubba. Intaanu barnaamijka u gudagelin fadlan sii faafi barnaamijkeena adigoo ku sheer garaynaya asxaabtada baraha bulshada. Haddaad barnaamijkeena ku cusub tahayna fadlan nagu soo biir adigoo subscribe dhahaya gambalaalka furo si uusan ku dhaafin barnaamijyadeena maalinlaha ah. mahadsanidin aanu ku bilownay ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya ciidamada deegaanka ayaa howlgallo qorshaysan ku dilay 14 xubnood oo isugu jira horjoogayaal iyo maleeshiyo ka tirsan kooxda argagixisada ee Al-Shabaab kuwaas oo isku urursanayay deegaanka Dabaqlibey oo hoos tagta degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe sida uu warbaahinta u sheegay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Generaal Odawa Yuusuf Raage. Ciidanka xoogga dalka iyo geesiyaasha dadka deegaanka ee ka xoreeyay Al-Shabaab magaalooyinka muhiimka ah ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa weli deegaanada howdka iyo tuulooyinka ka wada howlgallo ay ku baacsanayaan firxadka khawaariijta. meydad badan oo ka tirsan argagixisada Al-Shabaab ayaa la soo dhoobay degmada Aadan Yabaal kuwaas oo ciidamada macbuusleyda horey u soo qaateen si ay lacago uga qaataan madaxda dowladda ee hogaaminaysa dagaalka. dhanka kale xubnaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulankooda caadiga ahaa ku yeelanaya xaruntooda Muqdisho. kulanka oo ah mid muhiim ah ayaa lagu wargeliyay dhammaan senatarada golaha iyadoo guddoonka uu ka codsaday inay kulanka soo xaadiraan. ajandaha kulanka ayaa lagu soo koobay laba qodob kuwaas oo kala ah ansixinta xubinta guddiga dastuurka ee OC 2 ka doodista iyo wax ka beddelka xeroosaadka aqalka sare. xildhibaanada aqalka sare ayaa la filayaa inay marka hore u codeeyaan xubinta guddiga dastuurka ee OC kadibna ay ka doodaan wax ka beddelka xeroosaadka golahaasi. inta badan guddiga joogtada ah ee aqalka sare ayaa diyaariyey ajandayaashaasi ayagoo u soo gudbiyey habdhowrka si loo horkeeno golaha ugana doodo. kulamada aqalka sare ayaa haatan si caadi ah ku socdo waxayna kulamadii u dambeeyey qaarkood la galeen xildhibaanada golaha shacabka sida ka doodista miisaaniyadda 2023. baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa shaqadiisu waxay tahay meelmarinta shuruucda dalka iyo sidoo kale la xisaabtanka hay'adaha dawladda. dhanka kale taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed Generaal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo gaaray magaalada caasimadda ee Addis Ababa ayaa kulan gaar ah la yeeshay dhiggiisa waddanka Itoobiya Generaal Damalashe Gabramechel. labada taliya ayaa kala saxiixday heshiisyo ku saabsan amniga Soomaaliya iyo Itoobiya maadaama ay yihiin daris ayna isaga xiran yihiin dana badan. Generaal Xijaar iyo Generaal Gabramechel ayaa ku heshiiyey inay yeeshaan iskaashi dhanka amniga ah iyo sare u qaadista tababarada aqoonta booliska labada waddan. sidoo kale waxay isku raaceen labada dhinac inay hadda kadib ay wadaagaan xogaha kala duwan ee la xiriira shaqada ciidanka booliska ee Soomaaliya iyo Itoobiya. heshiiskan ayaa la filayaa in loo soo gudbiyo madaxda sare ee labada dal si loogu wargeliyo loogana wada shaqeeyo dhaqangalkiisa. dowladda Itoobiya ayaa haatan xiriir wanaagsan la leh Soomaaliya kaasoo sii xoogaysanaya sanadihii u dambeeyey waxayna labada dal sameeyeen isu soo dhawaasho iyo isbeddel ballaaran. dhowaan ayay ahayd markii taliyaha sirdoonka Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad oo isna booqday Addis Ababa uu heshiis la soo saxiixday dhiggiisa dalka Itoobiya. waxaana sidoo kale isna dalkaasi tagay wasiirka difaaca xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur oo la soo kulmay dhiggiisa oo ay ka soo wada hadleen arrimaha ammaanka iyo dagaalka Al-Shabaab. Itoobiya ayaa qayb ka ah dagaalka sida tooska ah ugu qayb qaata howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab waxayna ciidamo ka joogaan Soomaaliya kuwaasoo ka mid ah ATMIS. weli waxaan ku jirnaa barnaamijkeennii maanta iyo maalinlaha Jubba. war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa lagu cambaariyey tacdiyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha oo Al-Shabaab ay dagaalyahanadooda ugu geysteen degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe. bayaanka oo ka soo baxay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa lagu sheegay in Al-Shabaab ay xasuuq wadareed u geysteen dagaalyahano ka badan 100 qof oo lagu dhaawacay dagaaladii ay ku galeen deegaanada Hirshabeelle. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa tacdiyadaasi ku tilmaamtay kuwo ka baxsan diinta Islaamka, bini'aadanimada iyo dhaqanka Soomaaliyeed. intaba ayaa lagu yiri bayaanka. warka dowladda ayaa intaas ku daray dhakhaatiirta ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo diyaar u ahaa daweynta iyo xanaaneynta khawaariijta dagaalka ku dhaawacmay ayaa ka war helay in la helay godad waaweyn oo lagu guray khawaariijta ayagoo dhaawacan ay dhammaystireen madaxda khawaariijta ee sii cararayay. sidoo kale warkan waxaa lagu sheegay in dowladda ay aaminsan tahay in dagaalka lagu qasbay dhallinyaradaasi dhaawacyadooda la dhammaystiray oo haddii ay gacanta dowladda soo galaan heli lahaa dabiib caafimaad, soo dhoweyn iyo in loo diyaariyo in ay bulshada dib uga mid noqdaan marka ay dhammaystirtaan barnaamijyada dhaqan celinta ee dowladda Soomaaliya. waxaa mar kale loogu baaqay dhallinyarada la qalday in ay iska diidaan awaamirta horjoogayaasha arxanlaawayaasha ee Al-Shabaab ayna si degdeg ah isugu soo dhiibaan dowladda si naftooda iyo mustaqbalkooda loo badbaadiyo ayaa lagu yiri war murtiyeedka ay soo saartay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya markii ay ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanku Al-Shabaab ka qabsadeen degmada Aadan Yabaal iyo deegaano kale
oo kooxda laga saaray waxaa lagu arkay meydadka dagaalyahanada kooxda oo 10 loo aasay warkaani ka soo baxay dawladda ayaa muujinaya in al-shabaab ay bilaabeen in ay dhammaystiraan oo laayaan dhaawacyada dagaalyahanadooda kaasoo ka soo gaaray dagaalka ay kula jiraan dadka iyo dawladda Soomaaliya intaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeena maanta iyo maalinlaha Jubba barnaamijku waxa idin daadihinayay anigoo ah Ismaaciil Kulmiye aniga iyo dhammaan bahda wargeyska maalinlaha Jubba waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiiso leh nabadey